taliyaha saldhigga booliska magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Gaashaanle Maxamed Macow Xalan oo ka hadlay xaaladda ammaan ee degmada Beledweyne dilal siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada labadii maalmood ugu dambeysay kuwaas oo loo geystay askar iyo dad shacab ah ayaa ciidamada ammaanka waxa ku amray inay galaan heegan buuxo oo ku aadan sidii lagaga hortagi lahaa falal ammaan darro ee mar kale ka dhacay magaalada Beledweyne iyo waliba sidii lagaga hortagi lahaa al-shabaabka ka soo cararaya sida uu sheegay duqeymaha diyaaradeed ee maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay deegaanada ka tirsan Hiiraan oo laga yaabo inay soo galaan magaalada sida uu hadalka u dhigay bulshadana ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka isla markaana ka codsaday inaysan wax gabaad aysan siin al-shabaabka ka soo cararaya duqeymaha diyaaradaha ee ka socday Hiiraan iyo qaybo ka mid ah gobolada koonfurta dalka kadib shirjaraad oo taliyaha saldhigga booliska Beledweyne Gaashaanle Maxamed Macow bahda warbaahinta ugu qabtay xafiiskiisa saldhigga booliska Beledweyne ayuu kaga hadlay arrimahaas waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan rabaa halkan inaan shirjaraad ku qabanno halkan waa taliska booliska gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle saldhigga degmada Beledweyne run ahaantii si aan la socono gobolka Hiiraan ama degmada Beledweyne amnigeedu waxa uu ahay boqolkiiba 80 ama boqolkiiba 90 ayaan dhihi karnaa xagga amniga waxaan rabnaa inaan ka hortagno amni darro maalmahan labadan maalin oo soo dhaafay shaqooyin yaryar oo xagga amniga ah ee ka dhacay degmada dad baa lagu dilay maalmihii la soo maray 48 saac oo la soo dhaafay magaalada gudaheeda siyaabo kala duwan lagu dilay ilaahay baa ku mahadsan ayaga lafteeda xaaladaheedu waxay noo marayaan dadkii dhibaatooyinkaas geystay meelo fiican si ayna wax kale u dhicin ama waxyaabo noocaas oo kale aysan u dhicinna waxaan maanta halkan uga hadlaynaa si looga hortago oo dhanka ciidamada amniga iyo shacabka degmada Beledweyne labadaba aan rabaa inaan kala hadlo xagga ciidanka haddii aan ku hormaro ciidanka waxaan rabaa inay heegan galaan u diyaar garoobaan in nafla caarinimada cadowga ay ka hortagaan cadowgu inuu nafla caari yahay oo nafla caarinimada uu la kufayana saa darteed marka waxaan codsanayaa shacabka Soomaaliyeed qaasatan kuwa gobolka Hiiraan ee degmada Beledweyne in ay heegan u galaan ciidamada amniga ay heegan la galaan u diyaar garoobaan in cadowgaas magaalada ku soo fagaxsan oo soo galaya inaysan soo dhaweyn sidoo kale taliyaha saldhigga booliska Beledweyne Gaashaanle Maxamed Macow ayaa ka hadlay dhanka kale abaaraha iyo xaaladda biyari ee webiga Shabeelle saameynta bulshada ay ku reebtay isticmaalaanta lacagta shilinka Soomaaliga ah oo aan muddo ku dhow 2 sanadood laga isticmaalay magaalada Beledweyne waxaana uu sheegay in lacag la'aanta ka jirta Beledweyne dadku ay marayaan nolosha heerkii ugu liidanaa fariin u diray dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha deeqaha bixiyo abaar ayaa ka jirta biyo la'aan ayaa ka jirta nolol xumo ayaa ka jirta runtii waad aragteen si aad la socotaan webigii Shabeelle uu guray gibi ahaanba biyihiisa way yaraadeen way isbedeleen madabkooda isbedelay socodkooda istaagay ayaga dhadhankooda isbedelay dhanaanay noqdeen dhanaan cusbo biyo meel cusbo la qasay camal ay noqdeen waad aragteen madowgeeduna wuxuu noqday jaalle dadka ku nool degmada Beledweyne boqolkiiba 90 ma awoodaan inay biyo macay helaan meesha 10 ka soo hartay ay ka heli karaan algaal 15 kilomitir noo jira fuustada biyo $2 iyo barwa hadii la keenay halkan cid u wada waxaad fahmi kartaan cid u wada inay aad u yar tahay dhanka kale Gaashaanle Maxamed Macow taliyaha saldhigga booliska Beledweyne ayaa digniin adag u diray shakhsiyaadka qashinka ku shubaya webiga Shabeelle iyo kuwa la musqulaha ku teesan webiga Shabeelle ee dhexmara magaalada waxaana uu sheegay in tilaabo adag laga qaadi doono cidii lagu arko arintaas maanta wixii ka dambeeya dadka reer Beledweyne qaasatan afarta xaafadood degmada Beledweyne dadka degan inta webigu ka maro webiga waxa la caadaystay in qashin lagu shubo hadduu buuxa iyo hadduu faaruq yahay in qashin lagu shubo ayaa la caadaystay waxaan uga digayaa dadka qashinka ku shubo oo webiga u qaadaya inaysan qashin daba u qaadi karin laga bilaabo saacadaas 27kii Febraayo wixii ka bilowdo maantay ay 27kii Febraayo taariikhdu tahay inaan qashin daba webiga lagu shubi karin cid kasta oo lagu qabto ciidamada amniga ay ku qabtaan
in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. Khalid Maxamed Ismaaciil Kacase, telefishinka caalamiga Somali News, Beledweyne.